shacabka reer Somaliland waxaanu mahad celinaynaa hambalyo iyo bogaadin u direynaa golayaasha qaranka waxaanu hambalyo iyo bogaadin u direynaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne ku xigeenka golihiisa wasiirada shacabweynaha reer Somaliland iyo shacabka reer Celafweynba inta bacdigeed runtii waxa farxad weyn inoo ah inaynu maanta reer Celafweynow inaga oo mida aynu halkan isugu nimi sida aynu xusno sanad guuradii 34aad ee ka soo wareegtay maalintii aynu madaxbannaanideena kala soo noqonay dalka Soomaaliya aynu halkan ku wada xusayno inagoo reer Celafweyna oo mida nabadgelyana aynu ku xusayno waxa aynu isu dardaaraynaa haddaynu reer Celafweyna halkan dardaar badan baa laynaga siiyay in badanna waa layna dardaaray waxaynu isku dardaaraynaa nabadgelyo waa nabadgelyadana aynu ilaashano midnimadeena aynu ilaashano horumarkeena aynu wada dhaqaaqno wax kastaba aynu inagu reer Celafweyna aynu wada qabsano intaasan reer Celafweyna leeyahay inta kale waxaanu mahad celinaynaa cid kasta oo ay nagala shaqaysay nabadgelyadii halkan ka qabsoontay iyo go'aamadii halkan ka soo baxay bisha 3 2025 oo ay u horeyso gudidii dhexdhexaadinta ee go'aamada soo saartay oo uu ku xigo madaxweyne ku xigeenka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland mudane maxamed cali cabdi oo runtii halkan saddex bilood oo u fadhiyay sidii ay Celafweyn nabad u noqon lahayd sidii ay Celafweyn walaalo u noqon lahayd sidii ay Celafweyn isu dhexgal lahayd ilaa iyo maantana saacad noola soo hadla oo xaaladda Celafweyn iyo halka ay marayso iyo sidii ay u daadegtay mar walba waxa weeyaan ka warhaya aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa isaga iyo waxa weeyaan waftigii la socotay wasiirada ahaydba iyo cid kasta oo ka shaqaysayba waanu mahad celinaynaa waxaan leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka inii saaro reer Celafweyn waxaan leenahay tacabka aynu ilaalino reer Celafweynow magaceeni baxay aynu magac ka wanaagsan ku bedelano ayaan idin leeyahay inta bacdigeed waxaan doonayaa inaan si gaar ah halkan u xuso inamadii dhalinyarada ah ee aqoonyahanka ah halkan inooga hadlay runtii inagala halka uga soo salcaalay ilaa Hargeysa inay maaragtay Celafweyn wax ka bedelaan oo horumarkeeda qayb ka noqdaan oo librariyo inoo furaan oo xagga aqoonta inoo jeeyaan waa u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa qurbo jooga reer Celafweyn oo halkan uga hadlay Faarax Cilmi Cali oo runtii isaguna khudbad qiimo badan noo jeediyay waxaan u mahad celinaynaa Suldaan Naasir oo kamid ah gudida isdhexgalka iyo waxa weeyaan daadajinta nabadda oo intii kale isaga mooyaan intii kale ay u fadhido arrimaha nabadda Darweyn ay u fadhido waxa weeyaan u dib jirtay geedka hoostiisa ay u jiifto sidii Celafweyn ay nabad u noqon lahayd iyo degmada Darweynaba waxaan leeyahay reer Celafweynow waa mahadsantihiin sida wanaagsan ee quruxda badan ay isugu soo baxdeen shucuurtiina u muujiseen shucuurta nabadana aynu u muujino nabaduna qalbiyadeena ka dhaadhacdo degmada Darweyne iyana u hambalyeynayna shacabka degmada Darweyne iyo maamulkeeda iyo gudida halka joogtaba iyagana waa u hambalyeynayna waa u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinayaa agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta mudane Shacayb Cismaan Aw Maxamuud Buurmadow oo runtii nagala qayb qaatay farxadan 18 May oo agabka calmaanta waxa weeyaan door muhiim ah ka qaatay isagana waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay agaasimo hambalyo oo aad ku mahadsan tahay bulshadaadii reer Celafweyna waa ogtahay inaad la dareentahay cid kasta oo runtii waxa weeyaan nagala qayb qaata nabadda iyo horumarka degmadana waanu soo dhaweynaynaa waxaan leenahay shacabka reer Celafweyna haddayna wada shaqayn horumarna helimayno nabadna helimayno nabaduna qalbigeena ha u dhaadhacdo xuduudeena aynu horumarka ku muujino aynu wada shaqayno maamul ahaan diyaar baan u nahay wax kasta oo Celafweyna ku horumarayso iyo wax kasta oo Celafweyn nabad ku helayso waxaan leeyahay Ilaahay sanad guuradeedana Celafweyna barwaaqa oo nabdoon oo horumarsan Ilaahay aynu simo waxaan leenahay Somaliland ha noolaato cadawgeenu ha jabo